barnaamijka haweenka hal abuurka iyo haweenka hablaha awdal oo hadda soo gabagaboobay waxa barbarkayga taagan asmagaga jiro iyadoo aasaasaha barnaamijkani gabdhaha lagu dhiirigelinayo asma ka waran barnaamijkani sida uu maanta caawa u qabsoomay wallaahi ma sha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karo caawa sidii aanu qorsheynay si ka qurux badan buu Ilaahay noogu hirgeliyay waxana qurxiyay dadka martida ka soo qayb galay oo si qurux badan iyagu u fadhiyay sidoo kale hablihii ku casubnaa iyaguna buugan anfaclay soo bandhigay marka alxamdulillah aad baan ugu faraxsanahay waxa tahay aasaasaha barnaamijkani sanadkii saddexaad buu magaalada Boorma ka qabsoomaya masleedahay barnaamijkan ujeedadeedu aasaastay waad ku dhowdahay wallaahi horta faanoola fari kama qadnabay Soomaalidu oran jireen laakiin waxaan oran karaa waa barbilow qurux badan oo nagu dhiirigelinaya inaan sii wadno sanadku waxay ahayd hablaha hal abuurka wala qoraaga maxaad ku dooratay waxaan ku dooranay sanadkii hore ayaa isku jiray oo wuxuu isku jiray hal abuurka fikradaha ganacsiga iyo hibo dadna waxaanu go'aansanay hal abuur kaliya inaanu door ka qaadano qoraalkuna wuxuu noqday hal abuurka iskii loo qaban karo hadda waxa barbarkayga taagan Yaasmiin Axmed Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka Wiija Yaasmiin waxay uga soo safartay magaalada Hargeysa si ay barnaamijkan uga qayb gasho haba waxaad ka warantaa barnaamijkan sida uu dhacay ma sha Allah waa barnaamij qiimo leh maadaama ay ku saabsan yahay hablaha hal abuurka hablaha gobolka Awdal iyo habeenkoodii weeyaan inta badan waxa lagu soo bandhigayo caawa u gaar ahayd anu marar hore ka soo qayb galay waxa lagu soo bandhigay dhaqankii cuntadii laakiin maanta waxa loo daayay hablaha han kale oo waliba hal abuurka deetana waxa soo bandhigay afar hablood ibadoodii oo sidaynu de madasha ka maqlaynay laba hore u soo bandhigeen labana ay ku cusub yihiin buugaagtoodii la daabicin oo guulba la oran karaa soo heetay haweenka hal abuurka waxa tahay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland barnaamijyada noocan oo kale markaad joogto dareen noocay ku leeyihiin adiga waxay noo leeyihiin marka laga hadlayo hablaha saxaafadda marka hal abuur laga hadlayo ma kala foga saxafiyiinta hal abuurka fanaanka wariyaha marka bahba isku yiin marka waxay noo sameynaysaa macno weyn oo buuxa inaynu helo hablo wax qora oo wax soo daabici kara buugaag keeni kara waxay noo sameynaysaa macno weyn anaga lafteeduna waanu dhiirigelinaa maadaama aanu ka shaqeyno saxaafadii waxaanu leenahay marka barnaamij ka hadla hanka ganacsi ay haweenku leeyihiin oo muddooyinkii ugu dambeeyay la wadnay BBC-da deetana kaasoo kale aan ku dhiirigelinaa hablaha ama hal abuur ha noqdaan ama hal ahaadaan kaasoo kale aan ku dhiirigelinaa markaan soo dhaweynayna aad baad mahadsantahay umal khayr waxay ka mid tahay hablaha hal abuurka caawa lagu soo bandhigay waxay soo bandhigtay buugeegan oo la yiraahdo tus oo tusaale noqo umal khayr bal ka waran barnaamijkan caawa sidoo uu qabsoomay أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعدي waxaan ma hadnaqayaa dhammaan hablihii soo qaban qabay barnaamijka quruxda badan leh habeenka hibooyinka hablaha awdal aad baan u bogaadinayaa barnaamij qurux badan buu ahaa oo si qurux badan loo soo agaasimay aniga markaa ahaan waxaan kaga qayb galay buugaygan tusoo tusaale noqo